dhinaca gabdhaha oo kaliya miyuu ka yimaaday dayaca jacaylku mise raguna waa kala rag iyo dumarba waa same maxaa loo sababeyn karaa marka in jacaylku uu noqdo wax lagu ciyaaro oo malawaala xilliga taas waxaa sababayaan ku sheegaa waqti xaadirkan wiilka hadda jiro wuxuu isku dayaa inuu gabadhaas ku soo jiito lacag xilligaas lacag lama aqoonin lacagta la sheegayaba lama aqooninbo ya hadda laakiin waxay noqotay inay gabadhi wiilka lacag ku raacdo ama maxaan lahaa wiilkii uu gabadhaas lacag ku soo jiito ma fahantay ay noqotay taasaa keenaysa marka caqabada inta badan baabi'inayso oo burburka imaan waxaa laga yaabaa gabadh inay jaamacad dhiganayso gabadhaas la dhahayo intay xoolaha ka keentay maxay yihiin waxaa wadato usu waalidka control ku sameynaynin waalidka waxay gabadhaas u keento tixraac dambe ku sameynayo ma fahantay wiilkan gabadha wuxuu u keenaa xilligaas anaga ma aqoonin wax keenis iska dhaaf ma aqoonin warqada laftirkeeda markay buug nolol soo dhaxgalaa musqusha dhexdeeda ku akhrisaneen jaraas aan waalidka jareynayno waa kartay ma isleedahay waalidku qayb ay ka yihiin waqti xaadirkan caqabada jirta waalidka qayb ay ka yihiin maxaa yeelay gabadhan markay intaasoo wada socdeen ay keensato ay tiraahdo hooyo ama aabo ninkaan rabaa ay tiraahdo waxa leeyahay wiil adeerkaa dhalay ama wiil abtigaa dhalaa lagu siinayaa gabadhan inta badan jaceelkaas way soo dhisaysay caqabada ugu horeysa waalidka waay waalidka waxaa la rabaa in cunugiisa farxadiisa uu safiirin laakiin marka la yiraahdo yaa qabiilkiisa yuu yahay qabiil hebel ima soo galo aniga isma geyno waxyaalo fara badan aa jirto xilligaas lama aqoonin dadka saamay ahayn qabiil ma aqoonin anaka waqti xaadirkaas qabiil lama aqoonin saamal uu ahaa dadka oo idil Soomaali meel walba ay joogto saamay ahayd laakiin hadda ciidaha waxa ay noqotay wax walba qabiil waalidka markay gabadha ay keensato ama wiilka markuu gabadhi keensado oo yiraahdo hooyo miyaa aabo gabadhaan rabaa yaa way qabiilkeeda qabiilkeeda yuu yahay qabiil hebel lama soo galo isma geyno waxaasna fool xumo waay waana laga fiican yahay ummadda islaamka oo idil kulli waa muslim waxayna ka dhaxeeya diinta islaamka ummadana Maxamed ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ka wada dhaxeyso ma aha wax faquuq ah in la isfaquuqa xaraam waay wata maxaa u banaan salahan lamaana waxa laga yaabaa in 6 sano ay jacayl wadeen waalidkiina markaas sidoo kale isku maadanay diidaan waxa talaabo dadka jacaylku haya ay qaadi karaan dadkaas waxaan leeyahay horta marka u horeysa day gabar ay daawanayso ama wiil uu daawanayo horta wiil oo aaba la saaxiib gabar ay adna hooyo la saaxiib markii waalidka saaxiib laga dhigtaa ee la sheekaystaa ee aad arin kasta aad u jeedataa ma imaan kar wax faquuq la yiraahdo waayo waxa idinka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo ayaa idinka dhaxeeya waalidka laftirkiisa ayaa laga sameeyaa xiriir saaxiibtinimo markii waalidka xiriir saaxiibtinimo laga sameeyo ma imaanay faquuq oo waalidku wuxuu ku leeyahay saaxiibtinimadiisa ayuu wax kasta kugu tixgelinayaa laakiin hadaa waalidka iska ilaalisa ama wiilkii aad tiraahdo wiil hebelo miyaha hooyaday iyo aabahay waa dad xun wiilka kuma soo galin xumaantii reerkiina ugu sheekaysay bari markuu wiilkaas reerkii ixtiraam siinaya ama gabadha ixtiraam siinaysaa ma aha ina waalidka ugu sheekaysid maxaa la yiraahdaa wiilkana inuu waalidka ugu sheekeeyo gabadha oo hooyadiisa ama aabihiisa way xun yihiin oo yiraahdana ma ahan caqabada bismillaahir rahmaanir rahiim ay jirto waa taas horta ciidahay in wiilkii markuu gabadha arka asagoo gabadhiisan baata ka daarna hooyaday way qof xun hooyaday waa qeylne aabahay waasaan reerkan waasaan oo yiraahdo marka intaas bay waa inay ka tanasulaan dhalinta hadda jirto digniintaasna waa aan siinayaa jacaylka sidaad hore u tilmaamtay wuu hawlo badan yahay intii jacaylo kala duwan ay kugu dhacayeen ama qiso jacayl aad la kulmaysay ku jirtaa qiso ama adiga kugu dhacda ama qof kale ku dhacday ku xanuujisay oo aad ka sheekeyn karto ciidaha way jirtaa waa beriya waxaa jiri jirtay haddaad dhegaysatay ama haddaa maqashay riwaayad la dhihi jiray Shabeel Naagood riwaayadaas habeen ka mid ah iyadoo ay tiyaatarka lagu dhigayo gabar saaxiibana sooraan gabadha saaxiibaan la ahaa marka gabadhii marka waxba iimisa sheegay jir gabadhii inay musaafaysatay iyadoo iskool lagu ganay musaafaysatay uurey yeelatay arinta way iga qarinaysay wiilkii markii arinkay u bandhigtay wuxuu aan shaqo ku maleeyay riwaayadii markaan ka soo baxnay ay arintii ii sheegtay waxay tiirsan ay ugu dhacday sama ku dhacdaa hay dhib ma lahanay waxa ay riwaayadan maanta idil maxay aad fiirsanaysaa maxaa kaaga soo baxaya marka waa ay fiirsanaysaa
markaasay waxay tiri in badan ma xasuusti riwaayad iguma soo soconin riwaayadda ma baysan igu socono barnaamijka aniga haystay ka weynaa markaasaan iri ma maqashay gabadha hooyada waxay dhahaysay iri markaas tiri ma xasuusto markaasaan u sheegay waxaan iri waxay tiri hooyada gabadheeda markii ninkii ay guursatay nin baa ku qabee dhakhtarada u geystay waxay tiri dhakhtarada ii baar gabadhaan gabadhii waxay tiri gabadhaada uur bay leedahay gabadhaada uur bay leedahay markaas habartii waxay tiri calaaye calooshada waxa ku jira calaamadan ku qarsoon cawamaan fiileyn dhakhtaradeenii cudgooneyd codkay tiri cirkaygu soo dumo caafimaad ma qabo caluun iyo hooyo dhulku way la ciirayaa caradii waa dahabe calafkaaga soo ma duminay tiri markaasay tiri maanan ogeyn maba ogeynbu waxay ku hadlaysay gabadhii soo baxday waxay u timid hooyadeeda u timid marka ninkii way baxday ninkii u tagtay waxay tiri niihow uur baan leeyahay markaas wuxuu yiri anigu shaqo kuma leeyahay markaas waxay tiri warma intaad baleysay oo bahday adiga saartay oo booran dheeraad iga tuurtay yaa balanbalkaas ciilka ee badda ay ugu caayay ba ay leegu ogaa nafta biiri ma raaqo oo ma baaqdo ma fogaal kol haduu bila dhaafo kaama beeri yaqaan alla birqihiyo ku badbaadi nafteyda waxaana tixda ugu soo qaatay gabdhaha hadda joogan inaysan ninka aysan aaminin aysan guur qarsoodi ah aysan la gelin waatay guurkaas qarsoodiga laftiisa ayaan soo laabanayna ma la dhihi karaa dhalinyarta qaar jaceylka isu qabaan baa wuxuu ku kalifaa maadaama aysan mar walba dadka dhan aysan awoodin inay guur samaystaan xujada in ay tahay in qofta gabadha aad doonanaysid ama aroos aad u dhigtid ama hotel level aad geysid inay ku sababi karto in labada qof masaafo ay aadaan way jirtaa laakiin masaafada markay taas ay dhacdo waalidkii waraali ma ka yahay meesha duca ma taalaa waalidkana raali kama ah kana raali kama ahan meesha maxaa imaanaya marka ixtiraam dara imaanayso ila laba gabadha haddii waalidkeeda uusan ku sameyn waxba kuma tarta dhalideeda ama wanaageeda gabar lama gursado reerkeeda la gursadaa Soomaali hore u tiri marka waxa in badan aan ka waanaya in horta waalidka ila saaxiibaan tan iyo haday la waqti xadarkan kugu soo celinaya waalidka markuu ama wiilka aabihi la saaxiibo ama gabadha hooyadeeda la saaxiibto in badan wax walba ay toosayaan waan gartay arrimaha jaceylka xaggooda hadii aan waalidka ka nimaadno ay wali wax geeraar ama wax hees oo adiga ku taabatay oo dhinaca jaceylka ka tirisay ama aad jeceshahay oo mar walba dhageysan jirto daawadayaasheen aad la wadaagi kartaa ma jiraan geeraar in badan aan jeclahay jirto iyo hees badan Marian Nasir ay qaadi jirtay geeraarka aan jeclaa waxaa kamid ah dhul tariiq ma 70 baa qof min aadam tali kara 2 milyan inta baa la isnaan talaadam soo daleerin kara adiga tubta maanta itaagay abwaanada tirta aqoonta u tago balha kula taliyaan taas tabteed itaamadeed hadii la waayo to kale igu taagan ayaan tilmaankaaga rabaa tuf iyo tahliil aan waxba ka tirin taqtiirkiisa adigu tahay tartiib iga daaweyn kartaa tirada sanadku waa 12 bilood waqtiga daba taagan tiraayin iska dhaaf tartiib gulsano talaal iyo baasaboor tigid Roma aan ku ateed ayaan kaaga dhigaa taksiga jaceelkan ku qaadan taraafig ganaahayn waa karti ereyada garaarkan adiga maale may waa tahay waxaad adigu ereyadooda leedahay oo dhinaca jaceelka ka sameeyay ama ka xursi ma jiraan may ma jiraan dhinaca heesaha hadii aan u laabano heesaha jaceelka mar walba aad dhageysan jirtay ama marxaladii jaceyl uu ku hayay ama xilliga jaceyl dibtiisu ay kula soo diristo maxaan naga wadaagtaa heesaha badanaa aan jeclaa aan ku qaadi jiray ama aan ku shaqeyn jiray ama aan ku qaban jiray oo xilligaas aan xiiseynay waxa kamid ah hees ay Marian Nasir qaaday waxayna ahayd taariikh dhigan waaye jaceelka ma tirmaaye jaceelka ma tirmaaye taariikh dhigan waaye jaceelka ma tirmaaye jaceelka ma tirmaaye tirayada dhaafe ambateyda ay haysatee hatix raacintii hore
hatixraac intii hore iyo waxiin ka soo tagne tii allahayga ka weyn tuugma aadane dabcan heesta intaad qaadisay shucuur badanaa kaa muuqatay ma waxaa jirta saameynay adiga kugu lahayd heestaani in badan nacamtii jaceylka xilligaas ciidooy wallaahi waa mid aada aan soo sheegi karin in badan haddana tixgelin iyo qiimeyn ayuu lahaa hadda waxaa laga yaabaa inay daawanayaan dad hore ama jaceyl khasaaradiisa ugu soo dhacay ama wanaagiisa heesto laakiin tixgelin haddii la dhaho midkii horaa qiimeyn lahaa waxaan dib ugu soo laabanaa dhinaca jaceylka gaar ahaan midkan dambe farqiga waxaa dadka u sharaxdaa farqiga u dhexeeya lacagta iyo sidoo kale jaceylka farqi weyna u dhexeeyo waa gartee dad badanaa dad waxay dhahayaan jaceyl aan lacag lahayn waa shaaha aana lahayn taas waa been waa gartee gabadhan hadday ninka ay jeceshahay oo jaceylkeeda dhab ay tahay waxaa laga yaabaa maalin alla maalinta ayada ee daacad rabbi ay u mehersata inuu wax walba ilaahay ugu saqiro waxaa arkaysaa wiil gabar jecel gabadhii aada uu u jecel yahay ayadana ay jeceshahay markuu reer ka doonta leeyahay waa inaad hotel hebel aad kireysaa awoodna uma lahan reerkood waxaa laga yaabaa inay maalintaas hataa qutulyoonka ay suuqa kasoo dhacsadaan gabadhiina wuu jecel yahay ee lagu xujeeyey la yidhaahdo waa inaa hotel hebel gabadhaas u kireysaa waa inaa aroos intaas u dhigtaa waa inaa intaasoo kun loo lacag keentaa xaguu ka keenaa waa may soo maahan gabadhii reerka waxay u raadinayaan nin lacag leh ninkaasna jecelkiisii asigoo la jiran yahay ma lahan awood ma lahan awoodda ilaahay way weyn tahay kaan lacagta le kaan lacagta lahaynna waa seem marka waalidiinta waxaan ka codsanaa iyagana in badan inay tixgeliyaan jeceelka wiilka iyo gabadha ka dhexeeyo lacag maanta waxay tahay ma lahan ninkan maanta waxba haysan beri ilaahay wuu siin karaa marka in badan inay ayagana jeceelka tixgelin gaar ah ay siiyaan ugu baahanahay maxaa ku dhici kara markaa tusaale ahaan wiilka gabadh 4 sano jeclaa ama 7 sano 6 sano intii ay jaamacadda wada dhiganayeen jeclaa markii uu reerkii ka doontay hanti badan lagu xujeeyay qofka noocaasa dhaawac intee lag baa soo gaari karaa dhaawac aad iyo aad weyn soo gaaray waayo uu qalbi jawaaya xilligaas waxaa laga yaabtaa in maskaxdiisa ay wado marto kumanaana hadda ku jirto Dr. Xabeeb aan soo arkay in badan waxa leeyahay kulligood jecel oo waashteen ya wax caqabad kale oo u waashto waa wax yar in badan waxa keenay qofkaas isagoo hamigii lahaa uusan gaari karin ee marka reerka uu ka doonto la yiraahdo intaasoo kunkeen ama hotel hebelkeen uusan heenin reerkana ay awoodaan inay markaas xataa ama jiifka deyn ku soo qaataan waxa isku soo dibirtaan in isla mar ahaanta wiilkii gabadha isku xareeyaan ay awoodaan ee loo diido qofkaas maxaa ku dhici kara niyad aad weyn ku dhici karo maskaxda qofka bini aadanka waa xoob in badan uu isdaw maraya uu isla sheekeysanaya qofka muraayada ay ka jabtana wax natiijo ma lahan Soomaaliya ma isleedahay waxa xal loo heli karaa in dhibaatooyinka noocaas ah oo badi bulshadeena ku soo laabta ay dhacaan waa loo heli karaa xalkan wuxuu noqonayaa waalidiinta horena waan kuugu sheegay Soomaaliya xal waa loo heli karaa waalidiinta iyo ilmaha ay dhaleen haddii waalidiinta ilmaha ay dhaleen ee xiriirkooda ay taani noqdaan ee waalidka uu la sheekaysto ama gabadhii hooyada ay la sheekaysato in badan wax badan waa fududaanayaan waayo gabadha markay hooyada saaxiib ka dhigato ee la saaxiibtay la sheekaysato xil walba la sheekaysato erayga ayada ay keensato kama hor imaan karto wiilkan hadduu waalidkiisa la sheekaysto ama saaxiib la noqdo ma ka hor imaan karo aabaha kama hor imaan karo cunugiisa waayo saaxiib uu ah wax alaal wixii la soo gudbuna uu sheeganaya Soomahan laakiin marka waalidka adiga iska ilaalisid ya arinka adiga ay kugu kooban tahay wax natiijo ma lahaanaya waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu dambaysa oo noqonaysa muxuu yahay baaqa aad u diraysid dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan baaqa aan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay tahay in jaceelka daacad u noqdaan jaceelka haday daacad labada qofood ay daacad ay isku noqdaan ee qofka kale ta interest uu suun ku danayno qofka ma lacag uu ku danaynin ama wuxuu ku danaynin wax walba ay hagaagayaan marka ayagoo fiirinaya niyeysa ku noqon caqabada jaceelka waa in horta jaceelka ay siiyaan tixgelin iyo mudnaan
ay siiyaan haddii tixgelin iyo mudnaan gabadha ama wiilka ixtiraam u hayso ama wiilka gabadha ixtiraam u hayo oo ayada kaliya uu ku kooban yahay ama gabadha ayada kaliya ay ku kooban tahay wax walba ay hagaagayaan laakiin marka ay noqoto wiilka inuu gabar kale gabadha ku dulwado waxa imaanayo maxaa la yiraahdaa kala dambeyn la'aan iyo kalsooni darro burburka awal waxa ka imaanaa waa kalsooni darro ilaa wiilka marka gabadha ay ku kalsoon tahay gabadhii ama wiilkii nin kale uu ku arko ama wiilkii gabadhii nin kale uu ku arko wax natiijo ma imaanayo kalsooni darro imaanayso xilli walbana waa waji cusub marka waxaan ka codsan lahaa dhalinta hadda joogta haday dhageysanayaan ama ay maqlayaan waxaan ka codsan lahaa in ay horta ay u sameeyaan jaceelka mudnaan guud ahaan daawadayaal waxaan halkaasi kusoo gabagabeynayaa wareysigii aan la yeelanay liin xaaji oo kamid ah dadka ka faalooda arrimaha jaceylka mar kale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo